lama galaay goobo dadkii galayaan dib loo arag ama naftooda ku waayay. qaybteeda 6 jasiiradda Ramri. horaantii sanadka 1945 xilli uu gabagaba ku dhawaa dagaalweynihii labaad ee adduunka ayay dowladda Ingiriisku go'aan ku gaartay in ay jasiiradda Ramri dib ula soo wareegto Japan oo ka qabsatay bilowgii dagaalka. jasiiraddani waa mid weyn oo ogadeeduna siman tahay, taas oo ku habboon in saldhig military looga dhigay ciidamada boqortooyada. sidoo kale waxay dhacdaa goob istiraatiiji ah oo ku beegan xeebaha gacanka Bangladesh ee loo yaqaano Bengal Bay. jasiiraddan waxaa gacanta ku haysay boqortooyada Ingiriiska, waxaase xukunkeeda la wareegtay dowladda Japan intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. sanadkii 1942 ciidamada Ingiriisku waxay weerar ku qaadeen bariga jasiiraddan 19 Febraayo 1945. hadafkooduna waxa uu ahaa inay dib ula soo wareegaan jasiiraddan istiraatiijiga ah. iyaga oo garabsanaya ciidamo Hindi ah ayay ku soo degeen xeebaha galbeed ee jasiiradda. inta aan ciidamada lagu rogin xeebta waxaa lagu garaacay jasiiradda maraakiibta dagaalka oo la soo joojiyey meel aan sidaas uga fogeyn jasiiradda. sidoo kale ciidamada cirka ayaan duqayn aan meel loo dayin ku gubay ciidda jasiiraddan. waxay u muuqataa in ciidanka Japan ay waqti kooban isku dhiibi doonaan maadaama aysan iska caabin karin ciidamada huwanta ee ku soo duulay. inkasta oo xisaabta dagaalku sidaas sheegaysay, haddana ciidanka Japan marna kuma fikirin inay si fudud isu dhiibaan. waxa ayna banneeyeen gegida diyaaradaha ee ku dhoweyd xeebta, waxayna dib ugu gurteen gudaha jasiiradda. tirada ciidanku qiyaastii waa 1,000 askari. suurtagal ayay ahayd in ciidamada weerarka ay soo afjaraan oo ay ka dabagalaan jasiiradda, laakiin waxaa caqabad ku noqotay dabeecadda goobta ay miinsadeen ciidanka Japan. waa dhul aan ka yaran 12 kiiloomitir. waa dooxo dhoobi ah, xilli walbana ay biyo fadhiyaan. allana ku manaystay geedka loo yaqaano mangroofka oo ka qariyay ilayska qorraxda. warka oo kooban waa kayn jiqa oo xidhan, isla markaasna ay hara ka hoosayso. waa dhufays ninka gala aan looga dabageli karin. marka laga yimaado aragtida oo adag iyo in dhulka noocaan ahi badanaa hoy ama deegaan dabiici ah u yahay bahalo kala duwan oo aan dadka heshiis kala dhaxayn, haddana waxaa jira xayawaan meesha ku nool, kaas oo masaska, dabqalloocyada iyo bahalo kasta oo niyadaada ku soo dhici kara aysan agtiisa waxba ka ahayn. sida aynu soo sheegnay, ciidamada weerarka ee Ingiriiska iyo Hindida ka koobnaa kuma dhiiran in ay u bareedhaan gelista meeshan. waxa ayna direen dhowr doomood oo ka ilaaliya Jabaaniiska inay ka baxaan dhinaca kale. ciidanka Japan ee ku sugnaa jasiiraddan waxa uu ku jiraa go'doon adag, xaalkuna uma muuqdo mid isbeddel dhow yeelan doona, sababtoo ah ciidamada Ingiriisku ma geli karaan kayntan adag, halka ciidamada Japan aysan awoodin inay soo baxaan, diyaarna aysan u ahayn inay isdhiibaan. go'aankii ciidanka weerarka ahaa wuxuu noqday inay go'doon geliyaan ciidanka, lana sugo inta ay soo dhiibayaan. saacado kooban kadib qorraxda ayaa dhacday. waqti badan intaan la joogin, ciidankii Ingiriiska waxa dhagahooda qabsaday cabaad iyo qaylo ka yeedhaysa gudaha jasiiradda. dhawaaq xooggan oo rasaas ayaa dhagahooda soo gaaray, waxayna bilaabeen diyaargarow, sababtoo ah waxay filayeen in Jabaaniisku ay weerar miidaamaha ku soo qaadi doonaan. waxaa yaab noqotay sawaxanka iyo rasaasta ay maqlayaan oo aan xaggooda u soo socon. ciidamada meesha ku dagaalamaya maxay ahaayeen tolow? midda ka sii daran ayaa ahayd dhawaaqii rasaasta iyo cabaadkii askarta oo hal mar wada joogsaday. ciidankii Ingiriiskuna waxa uu ku adkaystay go'aankii ahaa inaan gudaha loo gelin kaynta biyaha leh. daawade, adiguba qiyaaso, xilli maalin ah ayay geli waayeen, sidee ayay goor habeena ku geli karaan? shabakadda Guinness ee ururisa rikoorka adduunka waxay ku tilmaamtay meesha waxa ka dhacay inuu yahay xasuuqii ugu darnaa ee xayawaanku hal goob u geysto dad bini'aadan ah. ogow, weliba ma aha dad caadi ah, waa ciidan hubaysan oo qaba tababar heer sare ah. xayawaanka geystay xasuuqan waxaa lagu magacaabay yaxaaska biyaha dhanaan ama saltwater crocodiles. culimada daraasaysa xayawaanaadka waxay ku tilmaameen yaxaaskan inuu yahay xayawaanka ugu weyn ee bogga ku socda. miisaanka xayawaankan waxa uu kor u dhaafay 1 kiilo, macnaha waa 1 tan. dhererkiisuna waxa uu gaadhaa 7 mitir. xawaarihiisu marka uu biyaha dhexdooda marayo wuxuu kor u dhaafaa 19 kiiloomitir saacaddii. xayawaankan weynaanta iyo xoogga isku darsaday waxa uu ugaarsan karaa libaaxa iyo shabeelka, hataa wuxuu ugaarsan karaa libaax badeedka haddii uu gacantiisa soo galo. jasiiradda Ramri ayayna ku nool yihiin tirada ugu badan ee xayawaankani. si gaar ah
aagga ay galeen ciidamada Jabaan ayay ku badan yihiin. tiradoodu 10 ma aha ee waa boqolaal. sida ay sheegeen khubradii falanqaysay dhacdadan, yaxaaskani waxa uu dareemay dadka soo galay eeggiisa maadaama ay jireen dad ku soo dhaawacmay dagaalka. waxay u badan tahay in xayawaankani uu dhiigooda soo uriyey. nasiib xumo, hubkii, rasaastii iyo saanadii ay wateen oo dhan waxba uma tarin, kamana celin yaxaaskan weyn ee ay ku soo doonteen gurigiisa. nin walba oo ka mid ah wuxuu maqlayay cabaadka saaxiibkiis, ma helin fursad uu ku cararo. xabadaha indhala'aanta ay u ridayeenna uma badbaadin naftooda. haddii aad halkan soo gaadhay, waxaa tahay xubin qaali ah oo ka mid ah bahaweynteenna. qaybta hoose ee kommentiga noogu sheeg inaad soo gaadhay meeshan. waxaad xaq u leedahay inaad maqasho qisada dadka kooban ee ka badbaaday xasuuqan. haa, dhammaan ciidanka Jabaan kuma dhiman kaynta manguruufka. waxaa jirtay koox aad ugu dhoweyd dhinaca bannaanka oo heshay fursad ay kaga cararaan meesha halista ah. kadib markii ay garwaaqsadeen inaysan iska celin karin bahalaha soo weeraray, waxay bannaanka u soo baxeen iyagoo ordaya, gacmahana kor u taagaya, hubkiina iska tuuray. waxayna isku dhiibeen ciidankii Ingiriiska ee ay markii hore ka carareen. tirada ciidanka badbaaday waxaa lagu sheegaa 280 askari. arrintani waxay ka dhigan tahay in 220 askari ay casho macaan u noqdaan yaxaaska biyaha dhanaan ee loo yaqaano salt water crocodiles. daawade, weligaa ma ku fikirtay in 1,000 nin oo hubkooda wataa ay iska celi waayaan yaxaasiyo? mase sawiran kartaa in 220 nin oo hubkooda wataa ay bahala ku cuni karaan wax ka yar hal saac? ugu dambayntii, haddii aad ku fikirto maalin uun inaad booqdo jasiiradda Remri, iska ilaali inaad gudaha uga shakaynta manguruufka ku eekow dhulka bannaan ee xeebta u dhow. daawade, waxaanu soo gaadhnay gabagabadii muuqaalkeenna maanta. fadlan haddii ay tahay markii kugu horraysay aad soo booqato kanaalka, soo dhow oo subscribe saar. sidoo kale, haddii aad horey nala joogtay, muuqaalka like saar oo sii sheer garee si uu gaadho asxaab qiimo badan. mahadsanid.